السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaad akhyaarta. waxaan rabaa insha Allah inaan idin tuso oo aan idin share gareeyo qaabka looga dhigo wifi-ga dukaanka kuugu xidhan ama meherada ama gurigaba passwordkiisa sida looga dhigo barcode-ka waxaa la yiraahdaa مثلا dukaamada marka ka adeeganaysan sida Walmart oo kale dadka Mareykan jooga ama Euro hadaad joogto kolba meesha joogto dukaamada ka adeegataan alaabtaad iibsatay boxka ay ku jirto ama bacda ay ku jirto meesha la iskaan gareeyo meeshaas la yiraahdaa barcode hoosna waxa ku leedahay number dheer oo laga yaabo inuu 20 numbers ama 12 numbers inuu yahay laakiin si fudud qofku uu iskaan gareeyaa marka waxaan rabnaa wifi-ga passwordkiisa inaanu ka dhigno barcode-kaas oo kale oo qofkii meherada haysay sida meheradaha misalan restaurants oo kale ee cuntooyinka sameeya ama meelaha macmacaankii cabitaanada lagu sameeyo iyo meherad kastoo serviceka wifi-ga free-ga bixisa marka customerku ay ku yimaadaan oo ay ku weydiiyaan ku dhahaan passwordka noo geli ama gurigaba haddii qof marti ku yimaado ku dhaha passwordka isi intii aad siin lahayd long confusing numbers ama password oo aad odhan lahayd sida buy a drink first oo qofku confusion uu qaadi lahaa ama password dheer oo capital letters iyo small letters ay ku jiraan oo qofku ku khaldamayo adigana questions badan oo kugu soo celcelinayo waqtiga ka luminayo waxaan rabnaa inaad barcode intan ka dhigno oo aad print garayso gidaarka aad ku dhajiso oo qofka customerka marka uu ku yimaado uu iskaan garaysto marka waxaa loo baahan yahay internetkaaga magaciisa exactly siduu magaca internetkaagu yahay security tabka internetkaaga iyo passwordka wifi-gaaga intaas markaad hesho way inoo fudud inaan sameeyno marka waxaad sameynaysaa buug iyo qalin baa soo qaadanaysa saddexdaas inuu qorayna insha Allah oo sii diyaarinayna saddexdaas sida lagu helana iyana waa steps kale oo ku tusay insha Allah marka waxaan rabaa inaad ka maarantaan dadka khaasatan meheradleyda ah inaydan long password aydan oo qofka confuse gareynaya inaydan siin dadka wifi-ga guryaha ugu jiraan waxa laga yaabaa inaad mar walba ilowdo laakiin hal mar hadaad sameeyso oo barcode aad ka dhigto oo gidaarka aad ku dhajisto mar labaad uma baahnid markasta aad u baahato gidaarka kuugu dhagan yahay warqadda waad iskaan gareynaysaa ama sawir ahaan baad ugu save gareyn kartaa computerka marka insha Allah let's do it waxaan tegaynaa Google Google markaan tagna waxaan ku qoraynaa website la yiraahdo inoo fududeyn doona waxaad qoraysaa qifi.org ama .org ka bacdi enter dheh marka waa optionka ugu horeeya ee ku soo baxa resultska uu ku sii Google optionka ugu horeeya weeye website-ku waxa la yiraahdaa qifi.org sagaad kali garanaysaa okay xiraal noqda markaad kali garayso aad furto page-kan ku keenaya page-kan waxa ku qoran optionka ugu horeeya oo ah SSID oo ah internetkaaga ama wifi-gaaga magaciisa exactly siduu magaciisu yahay meesha ku xigta waxa weeye encryption iyaduna waa security tabka wifi-gaaga meesha ka sii hooseysa ay key ku qoran tahay waa passwordka wifi-ga ama internetka page-ka markuu inoo soo baxo waxaan rabnaa markaa saddexdaa baynaynu helno exactly sida yihiin haddii magacu uu small letters iyo capital letters yahay exactly waa inuu siduu u qoran yahay waa inaad halkan u geliso the passwordkuna exactly waa siduu wifi-gaaga aad passwordka u isticmaasho kaas laftiisa inaad geliso isagana marka waxaan tegaynaa si saddexdaas ba inuu helno computerkaaga meesha ugu hooseysa ee loo yaqaano taskbar-ka dhinaciisa midig waa meesha ay ku qoran tahay meesha volume-ka ama codka markaad dallacayso kale ama taariikhda iyo date-ka laga eego ama waxaad samayn kartaa mouse-kayga tilmaantiisa raac waa geeska hoose calaamadda wifi-ga markaad korkeeda tagto right click baad siinaysaa
waxa ku soo baxay laba option. Optionka sare waxa weeye troubleshoot problems. Second option oo ah open network and sharing center, kaasaad ku dhufanaysaa. menuguna kuu furayaa, aan weyneeyo. menugu markuu kuu furo waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay Wi-Fi iyo magaca internetkaaga kole isku xigi doona. halkaasaad ku dhufanaysaa markaa. waa halkay ku qoran tahay Wi-Fi dhanka midig ah ku dhufo. menuguna kuu soo saaraya ka horaa naga xidho. menuguna markuu kuu soo baxo waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay wireless properties. waa halkaasaad hal mar klik garaynaysaa. menu kale kuu soo saaraya. menugu haddaad arki kartaan waa laba option. waxay raali noqda. waa laba option. option waa connection, ka kalena waa security. marka labada waynu u baahanay. ka ugu horeyn klik garaynaa connection. xaggan aan yar riixno. marka waxaan u baahanay magaca halkay ku qorantay name ama meesha ka hooseysa ee SSID. marka waa labada midkood. magaca Wi-Fi-gaagu wuxuu halkaas u imanaya insha Allah. halkaas labada magac ee kala sareeya ayuu noqon doonaa. marka waxaad soo qaadataa book iyo qalin. book iyo qalin marka exactly sida uu magacu u qoran yahay waad u qoraysaa. capital letters, small letters, intaba exactly iyo nambarada ku jira. magaca markaynu qorno waxaynu kale u baahnayn security type-kaaga. Wi-Fi-ga security type-kiisu nooca uu yahay waxaynu tegaynaa iyo passwordka Wi-Fi-ga. marka meesha ku xigtaynu tegaynaa ay ku qoran tahay security. halkaa markaad tagto security type baynu u baahnayn. halkay ku qoran tahay security type horteeda haddaad tagto waxaa kuu soo baxaya security type-ka Wi-Fi-gaaga noocuu yahay. kaygoo kale waana sida mainly u badan yihiin. waa personal, waa guri. waa WBA2 personal. drop down menuga haddaad klik garayso waa arki karta optiono badan inay ku jiraan, laakiin ka markaa kuu select garaysan ayaa ah security type-ka internetkaaga. labada option waynu helay. magacii waynu helay, security type-kiina waynu helay. labada waad qoranaysaa. hoos u sii deg halkay ku qoran tahay network security key oo ah passwordka Wi-Fi-gaaga. haddii arki kartaan waa dhibcahaas meesha ka hooseysa bogoska yar ay ku qoran tahay show characters, oo micnaheedu yahay passwordka waxyaabaha uu ka kooban yahay tus. kaasaad tigta saaraysa calaamadii saxda ahayd. kabacdi waxaa kuu soo baxaya passwordkaaga oo nambaradii iyo letterska uu ka koobnaa. waad koobiyeynaysaa isaga. highlight garee, bacdeen right click C, then waxaad klik garaynaysaa copy. also keyboardkaaga waxaad taaban kartaa control C oo same isku shaqo ay yihiin copy. saddexdaa waad qoratay. markaad diyaariso cancel dhe ama okay dheh. pagekeeni hore website-kan ku noqonaynaa. magacii aynu soo qoranaynu gelinaynaa. kan tusaale ahaan magacaygaba geli, Kamaal Carmiyaba geli. barasho wanaagsan dadka intaan aqoon. magacayga waa Kamaal. halkaa magaca markaad ku qorto Wi-Fi-gaaga oo kii aad soo qoratay ah, meesha ku xigta ay ku qorantay encryption waa security-ga internetkaaga uu leeyahay nooca uu yahay. waxaanu soo qorannay WBA2. haddii kaaga uu ka duwan yahay uu WBE uu yahayna kolba kii uu ahaa ayaad soo qoratad kelig ayaad dooranaysaa. drop down menuga badhankeeda hoose aad ku dhufanaysaa. marka waxaynu dooranaynaa WBA2. kabacdi waxaan teganaa meesha ka hooseysa ku qorantay key oo ah Wi-Fi-gaaga passwordkiisa. waynu soo koobiyeynaa isaga still waynu sidanaa. waxaan taabanaynaa control V ama right click C oo paste dooro. marka magacii waynu qornay oo ah exactly siduu ahaa. security type-kiina waynu dooranay. Wi-Fi-ga passwordkiisana waynu gelinay. kabacdi waxaad tegaysaa meesha ka hooseysa ee blue-ga ah ay ku qorantay generate. halkaasaynu ku dhufanaynaa. it doesn't take even 1 second ma qaadanayso. markii wuxuu ku siinayaa barcode. I think sawirka waa garan kartaan waa barcode. Wi-Fi-gaaga passwordkiisa iyo numberska ahaa iyo letterska isku jira waxaanu ka dhignay sawir barcode ah. marka waxaan sameynaynaa halkaa markaa marayso waa diyaar. passwordkii barcode baanu ka dhignay. waxaad samayn kartaa haddii computerka printer uu kugu xidhan yahay
waad print garan kartaa oo warqad intaad ka dhigto ayaad gidaar ku dhejinaysaa si qofka customerka marka uu ku weydiiyo aad u tiraahdo wakaas iskaan garayso. Also waxaad samayn kartaa sawir ahaan baad computerkaaga ugu save garan kartaa adiga laftaada haddii aad u baahato. Marka aynu save garaynaba sawirka korkiisa tegaysaa right click c waxaad dooranaysaa markaa save image as. marka meel computerkaaga ka mid aad ku save garaynaysaa kaba soo qaad maadaama sawir yahay meesha pictureska ku save garee magacana uu bixi wifi password badhe ama barcode kabacdi save baad odhanaysaa. markaad save garaysa kabacdi aan dib u furno halkan uu yaala aniga imageka computerka marka asagoo igu jiro waan isticmaali karaa. haddii aad warqad print garayso gidaarka aad ku dhejisana optionka inoogu xiga waxa weeye telefoonkaagu Android hadduu yahay telefoonada masalan Galaxy oo kale waxaad tagaysaa Play Store-ka Google Play-ga tagaysaa kabacdi waxaad search garaynaysaa appka magaciisa waxaa la yidhahaa Wi-Fi scanner ama QR scanner. waxa ka fiican waliba QR scanner inaad ku raadiso QR scanner ama barcode scanner saddexda waad ku heli kartaa noocba haddaad u raadiso. waa QR scanner ama barcode reader waan idiin soo qori doonaa insha Allah ama iyadoo telefoonka aan isticmaalaya idiin soo gelin doonaa. waa QR scanner ama barcode reader ama Wi-Fi barcode reader saddexda wuu kuu soo saarayaa marka optionno badan buu ku siinayaa. ka reviewgiisa uu fiican yahay oo uu yahay 4.5 ama 4.7 oo kale waa dooran kartaa. kabacdi appki markaad telefoonkaaga kusoo dejiso appkaad furaysaa. appku waxa uu sameynayaa kamarada telefoonkaaga ee dambe ama gadaal ayuu isticmaalayaa sawirkii imagekiisii oo warqadii gidaarka ku dheganayd ama computerka aad ku save garaysatay ayaad ku qabanaysaa. sawirka markuu dhammaan wada circle gareeyo automatic uu iskaan garaynaya. Wi-Fi-gana automatic ahaan isaga isku connect garaynaya waa hadduu Galaxy yahay ama Android uu ku shaqeynaya systemkaas. haddii laakiin uu iPhone yahay wuxuu sameynaya wuxuu ku siinayaa network magaciisa iyo passwordkii uu ku saaraya laakiin meesha ka hooseysa waa inaad ku dhufataa connect. marka still waa easy Wi-Fi iPhone laftiisa waa easy bay u tahay maadaama just one button aad press garaynayso. marka insha Allah waxaan u malaynayaa in dad badan ay ka faa'iidi doonaan khaasatan dadka meheradleyda ah. insha Allah haddii aan la fahmin ama stepsku ay yara adkaadeen comment-ka lagu soo qoro. haddii ay jiraan dad aan samayn karin oo u baahan in loo sameeyo insha Allah comment-ka igu soo qor email-kaygaan ku siin doona haddii la yiraahdo. kabacdi waxaad ii soo diri doontaa magaca Wi-Fi-gaaga iyo password-ka inta kuu sameeyaa asagoo image ahaan oo soo barcode kuu soo diri doona si aad u isticmaasho insha Allah ood computerkaaga ugu save garaysato. oo haddii masalan passwordka aad ilowdo oo kale aad u iskaan garayso insha Allah. I hope in laga faa'iiday videoga. marka insha Allah haddii codsiyo kale jiraan ama waxyaabo kale caynkaas ku saabsan insha Allah la isoo weydiiyo. videoyadan waxaa laga yaabaa in waqti u dhaxeeyo. I'm really busy guy maadaama YouTube-kana shaqo iima aha marka intaasna raalli laga noqdo insha Allah. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.